habeen hore isna ninkii hadlayay habeen saddexaad isaguna ninkii hadlayay ee ku soo biiray xisbiga ee mujaahidka ahaa Ibrahim Dhakaraashle waa macruuf mujaahidiinta sana maha ragii dalka soo halgamay ahaa shalay baa isna nin loo soo diray toori la galiyay oo lagu diray midi baa la galiyay shalayto hadda bal u fiirsada maxaad wadan u raacday midi lagu galiyay isna waa dhaawac ku yaala wajifa war waxaas ma dalbayna ku noqonaynaa waar kulmiyo dadku khasab ma aha qasab igu doorta ma aha haddaba waxa arintaas isna ganafka ku dhuftay isla markaana waxba kama jiraan ku tilmaamay mujaahidiin Dhakaraashle oo waramayay warbaahinta Kalsan TV waxaanu yiri anigu waxaan ahaa ninkii warbaahinta uu ka sheegay hogaamiyuhu lahaa waa la dhaawacay qolada waddan ay lahayn mujaahidka waa la dhaawacay oo waxa lagu dhaawacay kulmiye oo mu'amaraad bay ahayd ayaa la yiri waxaan cadeynayaa dhacday ninka nabarku dhacay waaniga in aanay ahayn wax xusbinimo khusaysa iyo wax kulmiye uu soo maamulay ama uu soo milagay mid aan ahayn waxay ahayd arin nin aan xigaal lahay oo aan si shakhsiyana aan isugu dhacay marka ummadii dadku waxaan u sheegaynaa inaan dadka fidmo inaan la dhaxligin oo aan lagu oolay oo aan lagu siyaasadayn qolada komishanka waxaan u sheegayaa inay anshaxa xusbiyada sidii horeba ay u sheegeen inay anshaxa ay xusbiyada u sheegaan uu noqdo ama sharciyan ay u raacaan wixii in aan isku horkeena in komishanku awoodiisa iyo doorka uu leeyahay ka qaato marka halkan waxaan saa uga cadeynayaa oo mar labaad aan ku celinayaa in aan xusbiga kulmiye anigu dalka waan soo halgamay halgankaan soo halgamay waayahay dacwooyinka dhacaya iyo waxyaabaha imanaya mujaahidiinta joogto xusbiga kulmiye waxa cabashada iyo mujaahidiinimada laga cabanayo iyo buddiga nolosha dalku inuu yahay xusbiga kulmiye iyo cid lagu aaminaya iyo cid taageeradiisu ay haysto marka waxa weeyaan dadka waxaan u sheegaynaa fidno la dhaxligin anigana nabarka soo igu dhacay waa sida aan sheegay intaas aan u cadeynaya bulshada